oo dadku kana waa aniga leeyihiin aad kugu dhaarta marka aad kugu dhaarto nimankii la makaahiil ee doolo u badan gobolka doole wardheer iyo nimankii la sacad ee aniga aan ka dhashay waa walaalo aad kugu dhaarta dad aqoonina aniga i weydiiya sidee wala ku yihiin muqaabalka maqashay saas weey waa hal farana muqaabalka maqashay hal far baynu nahay oo waa kaanimo badan reer sacada ayaa halka degan haddaba aqoonina sidaan ku wada dhalanay aniga i weydiiya anaga idin sheegaya laakiin xaqiiqada horta waa wada dhalanay anaga makaahiil waa wada dhalanay dhalashada la sheeganay ma mid runa ayaa u wada dhalanay DNA ahaan iyo qadiyad ahaan waa simana waxaan kale idin sheegayaa arrin kale oo ogeyn baan idin sheegayaa laakiin marka laga hadlayo makaahiil iyo sacad waa laba nin oo walaalo ah weey jaala sacad iyo makaahiil laba nin oo walaalo ah weey aabahay baa ii sheegi jiray aabahay baa ii sheegi jiray hooyaday aabaheed baa ii sheegi jiray qof kasta abkacabo waa taariikh way xusan waxa kale goy kartaan wax aad dhaqaajari kartaan ama aad idinku ka murmi kartaan ma ah ninba meesha lagu ogyahay laakiin taa anaga ogna waxa weeye waynu wada dhalanay reer sacad ko anaga aad maqasheen ee lagu sheegay hadda gabadha ku jirto aqalka sarmi ku jirto ama golaha shacab ku jirto ma qaana gabadha reer sacad oo anaga ah oo tusaale ahaan gabadha markay aydo artisato ee tiraada hebel magaca lixaad aan soo imaanayna waa reer sacad kas ka timid wardheer ka timid buy waxa laga yaabaa ninka hadda Cabdi Sheekh Muuse qalbi dhagax hadda isku artirsano waa isku imaanayna ma iga dhaadhicina marka ani ma iga dhaadhicinaysa kulma dhal marka haddii oo nuux ma taqaana abaskuul aan ilma habreedna oo ilaahay kuma samadiiday abayunis oo ma taqaana girkoomba aan ilma habreednahay oo Ibrahim aan ilma habreednahay oo makaahiil wada dhalanay kumaday yaa ku yiri imash way matali karaan tan